مسؤولين كتفن دولة goboleedka Puntland ayaa maanta magaalada Gaalkacyo kula iday shacabka magaalada Gaalkacyo iyadoo la gudoomiyaha gobolka Puntland Faisal Sheikh Ali oo kamid ahaa mas'uuliyiintii kala qayb gashay shacabka tukashada salaada Ciida oo khudbada ka jeediyay masjidka lagu tukanayo salaada Ciida ee ku yaala magaalada Gaalkacyo waxaana gudoomiyaha Faisal Sheikh Ali inta badan khudbadiisa uu kaga hadlay xoojinta amniga la dagaalanka argagixisada ka hortagga ka ganacsiga maandooriyaha khamriga iyo waxyaabaha la halmaala waxa sidoo kale gudoomiyuhu hambalyo u diray ummadda islaamka gaar ahaan shacabka reer Gaalkacyo kana nagu jiraan laynaga dilayaa waxaan rabnaa anaga wiilka iyo labada iyo saddexda iyo afarta waa ka adagnahay qoryaha wata laakiin qabiilo dhan ma nabadoonnada masuulkan ka jaraa oo ismada masuulkan halaag ba dhacaya laakiin halaaga waxa la rabaa inaad nala fahamtaan baa la rabaa laakiin waa imaanaysaa hadda waxa weeye kaadi badana waa loo gogol badiyaabay maraysaayo waxa weeye waa noo tirsayin inta masiibo magaaladan ka jirta waa noo tirsayin waxaan rabnaa reer Gaalkacyoodu dadku waxa weeye Soomaalida waxa la yiraahdaa qaar waa tala ku nool qaarna waa tabar ku nool qaarna waa tira ku nool dadka reer miyiga waxa lagu tiriyaa dadka tala ku noolka baa lagu tiriyaa waliba reer miyiga reer Puntland oo dhan baa lagu tiriyaa tala ku nool baynu nahay taladii hadda waa inaga guurtay oo tabar ku nool baan noqonay qoriga aa ka haabaa inay xukumo kulligeen tabar ku nool haddaynu noqonana waa rugmanaynaa qodobkaasaan kale qodobka alkolada iyo khamrida guryaheena lagu gadaa wiilasha cabba waa laga ganacsadaa dariiqyada ay soo martaa xiriyaha loo sameystay xiriyaha ay ku gashaa xiriya magaalada ku yaala bay gashaa waa ognahay waxaa la rabaa haddii wuxuuna ula gelayaa reer baale konton wiil iyo gawaari dhishikayaal ah baa magaalada keenaysa oo isku xiran hadda sumad bay leeyihiin baashay sumad bay yeelataa hadda waxa way sumadda reebel baashay lahayd weeye taas xaggay galaysaa dhammaan qabaa'ilada kulligood waa ka wada ganacsadaan khamrada wiilashooda xeryahaana farahaanu gelinaynaaye xeradeedii baa la soo weerarayaa la oran inaga reebel ahaan loo dalleeyay yaa la oranin xerada waa tegaynaa haddeertaan xerada ka soo saarta intaasaan uga baxayaa guud ahaanteen waxaan idin rajaynayaa nabad iyo barwaaqo waxyaabo badan oo iska dhacdhaca way jiraan laakiin sidoo kale shacabka magaalada Gaalkacyo ee reer Puntland ayaa iyaguna ka hadlay dareenkooda ku aadan munaasabada Ciidul Fidriga Soomaaliya maanta laba ciid baa kulmay ciidii Jimcada iyo ciidii waxa kulmay Soonfurka waxaan leenahay Ilaahay camaasha anaga aqbalo waxaan si gaar ah u hambaleynayaa reer Gaalkacyood waxa Ilaahay ka baryaynaa in Soomaaliya nabad iyo barwaaqo amni ka sanadkeeda Ilaahay nabad barwaaqo u gaarsiiyo iyo guud ahaan ummadda muslimka ah waxaan leeyahay taqabbal Allahu minna wa minkum salih al-a'mal Ilaahay ha inaga aqbalo amalkii wanaagsan ee soo sameeynay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed sababteeda markay joogaan waxaan u duceynayaa muslimiinta markay joogaan Ilaahay ka aqbalo raanka macsoonka iyo rabaantii soo sameeyeen ciid mubarak baan hambalyo assalaamu alaykum waxaan meeshan hambalyo ugu dirayaa dadka muslimiinta dhamaantoodii meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadka muslimiinta Gaalkacyo ku nool waxaan kaloo hambalyada ciid aan u dirayaa waalidiinteeda iyo qaraabada dhamaantoodii meel kasta ay joogaan saa ugu hambalyeynaya familkeyga oo ugu horeysa hooyadii Xawa Maxamed Xasan Deyn aabe Cismaan Xirsi iyo dhammaan bulshooyinta igula dheehan reer Puntland waxaan leeyahay ciid mubaarak sanadkiisa kale barwaaqo iyo bashbash Allah noo gaarsiiyo waxaan leenahay muslimiinta meel kasta ay joogaan hambalyo ciid wanaagsan ciid mubaarak Ilaahay waxaan ka baryaynaa ciidan ciidadka Ilaahay uu nabad nagu gaarsiiyo marka Soomaalida waxaan leeyahay iyo ummadda islaamka oo dhan meel walba ay joogaan ciid wanaagsan aniga magacaygu yahay Xaashi Axmed Gabanow waxaan u hambalyeynayaa ummadda muslimiinta meel kasta ay joogta waxaan leeyahay ciid wanaagsan Cabdi Isaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo